Heesaagii caanka ahaa ee u dhashay waddanka Mareykanka Michael Jackson ee sida weyn looga yaqaanay dunida reer galbeedka iyo guud ahaan caalamka oo dhan, ayaa muddadii uu ifka ku noolaa waxa uu ku taami jiray inuu gaaro da'da 150 sano si uu waqti badan u sii maaweeliyo dadweynaha kala duwan ee fanka jecel oo adduunka dacalladiisa ku kala nool, kuwaas oo aad u jeclaa fankiisa heybadda ah iyo masraxiyadiisa tolmoon marka uu fagaaraha ka soo muuqdo. Michael waxa uu shaqaaleysiiyey 12 dhakhtar oo maalin kasta baaritaan joogto ah ku sameeya caafimaadkiisa, si loola socdo xaaladda uu markaas ku sugan yahay. Waxaa raashinkiisa lagu tijaabin jiray shaybaar casri ah ka hor inta uusan cunin, si looga hortago jeermiska iyo sumoowga sababi kara dhimasho degdeg ah, maadaama uu dadaal xooggan ugu jiro inuu sanado badan nolosha baaqi ku sii ahaado. Michael waxa uu lahaa xirfadlayaal ka caawiya jimicsiga, kuwaas oo jirkiisa ka ilaalin jiray inuu daal ama xanuun dareemo. Intaas waxaa u sii dheeraa, sariirta uu ku seexdo waxaa laga sameeyay tiknoolajiyad khaas ah oo xakameysa heerka neefsiga marka uu hurdo, si ay u dhicin inuu naqaska ku xirmo ama si lama filaan ah nafta kaga baxdo ka hor inta aan gurmad loo fidin. Inkastoo uu Michael isku dayay inuu mowdka ka difaaco naftiisa, haddana kuma uusan guuleysan damaciisa khiyaaliga ahaa, waayo waxaa ajal looga dhigay oo uu u geeriyooday wadne istaag ku soo bood ah oo la badbaadin kari waayay markii ay taariikhdu ku beegnayd bishii Juun 25-teedii sanadkii 2009, isaga oo da'diisu ahayd 50 sano, xilli uu isku diyaarinayay inuu socdaal ballaaran ku soo maro dunida reer galbeedka oo uu taageero fiican ku lahaa. Haddaba daawada dulucda sheekadu waxay tahay in hantidu aysan mowdka kaa baajin karin, iyo in basharku uu saaxiib u yahay riyooyin been ah oo buug lagu xariiqay, balse fulitaankeedu ay Alle u taalo. Intaas ayaan daawada ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa